Pro life. Security okay متى؟ يا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan akhriyo war-saxaafadeed ka soo baxay bulshada gobolka Banaadir. caawa oo taariikhdu tahay 20-ka bisha koowaad ee Janaayo 2018 ujeedo war murtiyeed ka soo baxay bulshada gobolka Banaadir. kadib markii dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir ay dawladda federaalka ay ka waayeen xuquuqdii dastuuriga ahayd iyo matalaadii ay lahaayeen ay ku lahaayeen labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. kadib markii dadweynaha reer Banaadir ay sabrayeen muddo fog ayna sugayeen inay helaan xuquuqda ay leeyihiin, waxa ay dadweynaha gobolka Banaadir go'aansadeen inay qabsadaan shirweyne looga tashanayo masiirka iyo aayaha gobolka Banaadir. waxaa shirweynahaas ka soo qayb galay xubno matalaya 3 milyan iyo barka muwaadin ee ku nool gobolka Banaadir oo isugu jira golayaasha degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. haddaba doodeer kadib waxaa shirweynahaas ka soo baxay qodobada soo socda. 1. laga bilaabo caawa oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha koowaad 2018 waxa ay si ku meel gaar ah u doorteen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Thabit Cabdi Maxamed inuu noqdo labada sano ee soo socota inuu hayo labada sano ee soo socota xilka gudoomiyanimo ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. qodobka labaad, muddadaas labada sano ah ee ku meel gaarka waxaa lagu diyaarin doonaa shuruucda rasmiga ahayd ee lagu dhisi lahaa golaha deegaanka gobolka Banaadir. Number 3, muddadaas labada sano ah waxaa laga sii shaqayn doonaa maqaamka gobolka Banaadir si bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir ay u hesho xuquuqda dastuuriga ah ee ka maqan. 4, waxaa sidoo kale la dadar gelin doonaa muddadaas labada sano ah isku duubnida iyo midnimada bulshada ku nool gobolka Banaadir. qodobka ugu dambeeya ee number 5, waxaa sidoo kale laga sii shaqaynayaa horumarinta adeegyada dadweynaha sida nabadgelyada, waxbarashada, caafimaadka iyo wixii la mid ah. gunaanad sidaas daraaddeed wixii maanta ka dambeeya oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha koowaad 2018 mudane Thabit Cabdi Maxamed uu yahay gudoomiyaha la doortay ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, isla markaasna hogaamiyaha sharciga ah ee matalaya bulsho weynta ku nool gobolka Banaadir. waxaa caawa soo xaadirtay halkan 459 qof muwaadin oo ka kala socota golayaasha deegaanka yani degmooyinka gobolka Banaadir. waxaa codayday 451 laga bilaabo caawa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waa gudoomiye Thabit Cabdi Maxamed Bamaadudi. قارك لو بتقولي